markaasuu amray wakiilkii gurigiisa oo ku yidhi nimanka jooyadahooda cunto uga buuxi in alla intay qaadi karaan nin walba lacagtiisana jooyadiisa afkeeda ugu rid kan ugu yar jooyadiisa afkeedana waxaad ku riddaa koobkayga lacagta ah iyo lacagtiisii uu hadhuurhka ku doonayay markaasuu yeelay hadalkii yuusuf kula hadlay oo markii waagii baryay ayaa nimankii la diray iyagii iyo dameerahoodiiba oo markay magaaladii dibadda uga baxeen oo ayaan weli fogaan ayaa yuusuf ku yidhi wakiilkiisii kac oo ka daba tag nimankii oo markaad gaadhid waxaad ku tidhaahdaa maxaad wanaag xumaan noogu abaalguddeen miyuusan kanu ahayn koobka sayidkaygu wax ku cabbo oo uu ku faaliyo waxun baad samayseen markaad saas yeesheen kolkaasuu gaadhay oo uu hadalkan kula hadlay markaasay waxay isagii ku yidhaahdeen sayidkaygiiyow hadalka caynkan ah maxaad uga hadlaysaa yaanay noqon in annagoo ah addoommadaada aannu wax caynkaas ah samayno balleeg lacagtii aannu ka dhaxalnay jooyadahayaga afkooda ayaannu kaaga soo celinnay dalkii kancaan dee haddaba sidee baannu guriga sayidkaaga uga xadi karnaa lacag ama dahab kuwa alla kii addoommadaada ka mid ah oo laga helo kaasoo ha dhinto annaguna addoommo baannu ku noqon doonnaa sayidkaygiiyow markaasuu yidhi waa yahay oo haatan sidaad tidhaahdeen ha noqoto kii laga helo addoon buu ii noqon doonaa idinkuna waad eerla'aan doontaan markaasay degdegeen oo nin walba jooyadiisii buu dhulka dhigay dabadeedna nin waliba jooyadiisii buu furay kolkaasuu baadhay oo wuxuu ka bilaabay kii ugu weynaa oo wuxuu ku dhammeeyey kii ugu yaraa oo koobkiina waxaa laga helay jooyaddii benyamiin kolkaasay dharkoodii jeexjeexeen oo nin waluba dameerkiisii buu rartay oo magaaladii bay ku noqdeen markaasaa yuhuudda iyo walaalihiis waxay yimaadeen gurigii yuusuf oo isna weli halkaasuu joogay kolkaasay hortiisa dhulka isku tuureen oo yuusufna wuxuu iyagii ku yidhi waxaan aad samayseen waa maxay miyaydnaan ogayn ninkii anoo kale ahu inuu faalin karo markaasaa yuhuuda ku yidhi maxaannu kuugu jawaabnaa sayidkaygiiyow oo maxaannu ku hadalnaa ama sidee baannu ku eedbaxnaa ilaah waa soo saaray dembigayagii annagoo ah addoommadaada balleeg sayidkaygiiyow waxaannu nahay addoommadaada annaga iyo kii gacantiisa koobka laga helayba markaasuu yidhi yaanay noqon inaan saas yeelno ninkii gacantiisa koobka laga helay ayaa addoon ii noqon doona laakiinse idinku kaca oo nabdoonaan aabbihiin ugu taga markaasaa yuhuuda u soo dhowaaday oo ku yidhi sayidkaygiiyow anigoo addoonkaada ah waxaan kaa baryayaa inaan hadal yar kugula hadlo sayidkaygiiyow oo ha ii cadhoon anigoo ah addoonkaaga waayo waxaad la mid tahay sida fircoon oo kale sayidkaygiiyow anigoo ah addoommadaada ayaad wax na weyddiisay oo nagu tidhi aabbe amba walaal ma leedihiin oo annaguna waxaannu kugu nidhi sayidkaygiiyow waxaannu leennahay aabba duqa iyo wiil yar oo uu dhalay markuu gaboobay oo walaalkiisna waa dhintay oo keligiis baa ka hadhay bahdoodii aabbihiisna waa jecel yahay isaga oo adigu waxaad nagu tidhi annagoo ah addoommadaada bal ii keena isaga aan indhahayga saaree oo annaguna waxaannu kugu nidhi sayidkaygiiyow yarkoo aabbihiis kama tegi karo waayo hadduu ka tago aabbihiis dee markaas aabbihiis waa dhiman lahaa oo adna waxaad nagu tidhi annagoo ah addoommadaada haddii uusan walaalkiinnii idinku yaraa idinsoo raacin wejigayga mar dambe ma aad arki doontaan oo markii aannu u tagnay aabbahay oo addoonkaaga ah ayaannu isagu u sheegnay hadalladaadii sayidkaygiiyow oo aabbahayo wuxuu nagu yidhi orda haddana oo waxoogaa yar oo cunto ah
inoo soo iibiya oo waxaannu ku nidhi ma tegi karno haddiise walaalkayaga noogu yaru na raaco markaasaannu dhaadhaci doonnaa waayo ma aannu arki karno ninkii wejigiisa haddii uusan walaalkayaga noogu yari nala jirin markaasaa addoonkaagii aabbahay ahaa wuxuu nagu yidhi waad og tihiin in naagtaydu ii dhashay 2 wiil oo uu midkood iga baxay oo waxaan idhi hubaal cagcag baa loo kala jeexjeexay tan iyo waagaasna ma aanan arkin isagii oo haddaad kanna iga kaxaysataan oo balaayo ku dhacdo isaga dee markaas cirradayda caloolxumaad qabriga la gelin doontaan haddaba sidaa daraaddeed markii aan u tago aabbahay oo addoonkaagii ah haddii uusan wiilku nala jirin dee naftiisu waxay ku xidhan tahay nafta wiilka oo wuu dhiman doonaa markuu arko inuusan yarkii nala jirin oo annagoo ah addoommadaada ayaannu aabbahayaga addoonkaaga ahi cirradiisa caloolxumo qabriga la gelin doonnaa waayo anigoo addoonkaada ah ayaa aabbahay dammiin uga noqday wiilka oo waxaan ku idhi haddaan kuu keeni waayo xaggaaga eedu ha iga saarnaato weligay aabbahayow haddaba sidaa daraaddeed waan ku baryayaaye aniga oo ah addoonkaagii aan wiilka meeshiisii kuu joogo oo aan addoon kuu noqdo sayidkaygiiyow wiilkuna walaalihiisa ha iska raaco waayo sidee baan aabbahay ugu tegi doonaa iyadoo aan yarku ila jirin maba tegi karo waaba intaasoo aan arkaa hoogga aabbahay ku dhaci doona